بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين walaalayaal waxaan rabaa in idinla wadaago kilib yar iyo muuqaal yar oo galabta casirkii aan ka soo duubay walaalo muslimiin ah oo aada u dhibaataysan. walaalahaas walaalayaal waa dad muslimiin ah oo soo barakacay oo tuulooyinkii iyo magaalooyinkii ay ku noolaayeen dagaal ka dhacay oo magaaladii ka gubatay, magaaladii ka soo barakacay oo yimid degmada Balcad ee dowladka magaalada Muqdisho. ayaan galabta casirkii markii darsiga aan ka baxay aniga iyo raggii magaalada ka soo baxay qaarkood israacnay oo dadkii masaakiinta ahaa ee muslimiinta ah ay soo barakacay ayaan soo booqanay. waxyaabo waxaan kusoo aragnay walaalayaal cajiib leh oo aada maratay qofka qalbigiisa damiir walaaltinimo qalbigiisa ay ku jirto oo xoogaa damqanayo walaalayaal. waxyaabo la yaab leh ayaan halkaa kusoo aragnay walaalayaal. halkaasi waxay u baahan tahay walaalayaal oo aan isdhahnay dadka muslimiinta ah walaalaha ah ee waxhaysta in loo bandhigo oo kilibkan ila gaarsiiyo oo qof walba oo muslim ah oo arrintaas ka qayb qaadan kara ka qayb qaata. xilliga la joogo waa xilli abaar ah oo xoogaa jiilaal ah weeye. webigii dadku ay ku noolaayeen wuu ka guray, magaaladii ay ku noolaayeen way ka gubatay, meesha ay ku nool yihiin waa meel teendha ah aada u kuleyl badan, xoogaa rafaad ah ayaa ka muuqda walaalayaal. qaarkood carruurtu way aray xanuunsan tahay, dadku waxma haystaan way ka tabaareysan yihiin. walaalo muslimiin ah ugu yara gudmaday welina sida loo baahnaa dadka muslimiinta ah in loo garab siiyo meeshii ka muuqato. kilibkan waxaan ka codsanayaa qof kastoo muslim ah oo Soomaali ah oo soo gaaro in ay gaarsiiyaan dadka walaalaha ah ee muslimiinta ah oo waxhaysta. haddii adiga aadan u awoodi karaynin oo adiga maaragtay aadan caawin karin, waxaad ku caawisaa walaalka in aad gaarsiiso walaalaha kale muslimiinta ah ee dareenka walaaltinimo soomaalinimo ay ku jirto ee damqanaya. waxaan aada u jecelnahay walaalayaal dadka muslimiinta ah oo sooman xoogaa yara dhibaataysan in la caawiyo oo loo soo gurmado oo qof kastaba karaamkiisa iyo inta uu maaragtay awoodo uusan kala bakiilin. waxaad maanta hormarsato adiga ay ku horeeyaan walaalayaal. nabigu wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam anfiq calayk, wax bixi ha lagu siiye, wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifu. waxaad baxsataan oo aada dhiibataan ilaahay subxaana wa tacaala bedelkeeda u idin siinaya. dadkaas walaalaha ah ee muslimiinta ah ee maanta aan soo aragnay hilibkiisina uu idinka hor muuqdo oo aad arkaysaan xaalkooda sida uu yahay, qof walba oo waxgarad ah wuu qiyaasi karaya xaaladda lagu jiro iyo culeyska jira iyo dhibaatada jirta wuu qiyaasi karaya. dadkaas muslimiinta ah walaalaha waxay u baahan yihiin garab iyo gargaar ay u baahan yihiin. qof walba oo muslim ah Soomaaliya luqadda aan ku hadlayo fahmaya in uu usoo damqado, usoo gurmado, maaragtay shaashada lambarada idinkaga muuqdo iyo akoonada idiin muuqdo in qof kasta wuxuu heli karo dadka lagu taro. qofkii wax soo dira oo lacag soo dirana waxaan ka codsanaynaa in magaciisa uu soo qoro si maaragtay kiliibka dambe iyo lacagtii meesha ay ku baxday loo ogaado dadka muslimiinta ah aan loo gaarsiiyo. insha allahu tacaala taas waa baraarujin. qof walba oo walaal ah oo muslim ah oo kiliibkan yar uu soo gaaro waxaan ka codsanaynaa si dareen iyo qiiro iyo walaaltinimo ku jirtaay inuu meel fog u gaarsiiyo oo dadka muslimiinta ah la wada gaarsiiyo insha allahu tacaala. wallahu aclam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.